Ibas, Roniga aliga na ibas. Ibas, kubada aliga na ibas. kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa istaadiyaheeda waxay ku soo dhaweyn doontaa ciyaar ka tirsan isbuucii toddobaad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska dhigeeda Arsenal oo xifaaltan adag u kala dhaxeeyo. wiilasha kooxda Arsenal ayaana doonaya in dhibca ay ka soo qaataan Manchester United oo joogta istaadiyaheeda Old Trafford isla markaana ay ka adkaadaan tan iyo sanadkii 2006 ciyaarta waxay ka dhici doontaa istaadiyaha Old Trafford marka ay tahay saacadda 10 habeenimo ee xilliga geeska Afrika. sidoo kale waa habeen la wada yaqiisan doono cidda wanaagsan xilli ciyaareedkan kooxda Arsenal iyo sidoo kale Manchester United oo joogta Old Trafford. United waxaa haysata mashaqo kaleeto oo aad u xoogan taasi oo noqonaysa xagga dhaawacyada oo ciyaarta tan waxaa dhaawac kaga seegi kara ilaa iyo 8 iyo 7 ciyaartoy oo lafdhabar u ah kooxda kuwaasi oo hoggaanka ay u hayaan Martial iyo Rashford waxaana macquul ah in ciyaarta tan lagu soo bilaabo Mason Greenwood oo 17 jir ah kaasi oo ku soo bilaaban doona kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waliba koox weyn. waxaana la sugayaa in uu ismuujiyo sidii uu isku muujiyay kale Marcus Rashford. sidoo kale laacibka reer France ee Paul Pogba ayaa isla shaki weyn la gelinaya in uu ciyaari karo ciyaartan iyo in kale maadaama dhaawac bareeriyay anqowgiisa uu ka soo gaaray ciyaartii dhaweyd oo ay la ciyaareen kooxda Rabto. haatan xaalad adag ayuu dhex jibaaxaya oo xagga dhaawacyada macallim Ole Gunnar Solskjaer sidaasi oo ay tahayna waa uu ku qasban yahay in uu wajaho Arsenal oo marti ugu ah istaadiyaheeda Emirates Stadium. weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexander Lacazette ayaa isagana ciyaartan seegi doona ilaa iyo bisha soo aadan maadaama uu la maqan yahay dhaawac dhanka canqowga ah. sidoo kale jamaahiirta Arsenal ayaa aad ula rayaaqsan in ciyaarta tan dib ay ugu soo laabtaan laacibiinta kale ah Rob Holding iyo sidoo kale Hector Bellerin oo lagu daray saxiixooda cusub ee Kieran Tierney oo diyaar u ah in uu ku soo bilowdo kulankiisii ugu horeeyay kooxda Arsenal maadaama uu ka soo kabtay dhaawac duleystay mustaqbalkiisa ciyaareed oo dhinac kasteetaba la arki doonay habeenku caawa iyo waxa ka dhaxdhaca labada kooxood ee kala ah Arsenal iyo Manchester United laakiin waxa muuqanaysa in koox uun loogu dumi doono sidii dadkiyo kale ka rogo laba saar marka kanna xaqiiqooyinka aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato ciyaartan aadka u weyn ee ka tirsan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Manchester United ayaana guuldaro la'aan ah 12 kulan ee ugu dambeysay oo ay ku casuuntay istaadiyaheeda Old Trafford kooxda ka dhisan waqooyiga London tan iyo guuldaradii 1-0 ahayd ee Manchester United ka soo gaadhay kooxda Gunners bishii September ee sanadkii 2006 tan iyo markaas Man United waxay adkaatay 8 kulan waxaana ay barbara galeen 4 kulan oo kale taasi oo la micno ah in rikoor wanaagsan ay ka haysato Arsenal booqashooyinkoodii ugu dambeeyay ee maslaxadda riyada ee Old Trafford. ku darso kooxda Arsenal waxay hiigsanaysaa in Manchester United markeedii ugu horeysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2006-2007 in ay ka badiso 2 kulan oo isku xigta oo rikoorkaasi ayay ku fikirayaan in habeenku caawa ay jibiyaan xidigaha uu directorka u yahay macallim Unai Emery isla markaana jilayga weyn uu u noqday golmagafaha oradka dheer ee reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. caawana film horror ah oo labadaas nin ay mas'uul ka yihiin ayaa lagu daawan doonaa maslaxadda riyada ee Old Trafford iyo waliba United oo xidigahoodii waaweyn inta badan dhaawacyo ay kaga maqan yihiin taasi oo 90% rajadoodu ay tahay mid aanan wacnayn. hase yeeshee taageerayaasha United-ka ayaa dhinac kasteetaba waxay aaminsan yihiin si waliba ha kaga jajabnaatee in ay ka burjisareeyaan kooxda Arsenal markasta oo ay timaado maslaxadda riyada ee Old Trafford. sidoo kale xaqiiqadan ayaa ku tilmaamaysa in habeen isniinaad uusan u wacnayn kooxda Arsenal marka ay la ciyaarayso ligeeda Manchester United. dhammaan 3 kulan ee Arsenal ay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska u martisay Manchester United ayaa ahaa maalmo kala duwan. sidoo kale ogow waa kulankoodii saddexaad ee kooxda lagu naanayso shiyaadinta cascas Arsenal ay la ciyaarayso waqti ku beegan isniin waxaana ay kala kulantay
barbardhac gool iyo gool ah bishii Janaayo sanadkii 2000 marka oo ay ahayd maalin isniin ah halka kulanka kaleetana guuldaro gool iyo waxba ah ay kala kulmeen bishii December ee sanadkii 2010 Manchester United ayaa guuldaro la kulantay 3 kamid ah 6dii kulan ee ugu dambeysay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waliba iyada oo joogta Old Trafford 2 gool iyo 1 barbardhac ayayna heshay wana in ka badan 52 kulan oo ay ku ciyaareen Old Trafford markaasi oo ay la kulmeen 32 gool 17 barbardhac iyo waliba 3 guuldaro kooxda Manchester United ayaa guuldaro xanuun badan kala kulantay kulankoodii ugu dambeeyay ee Old Trafford ay kula ciyaareen koox ka socota caasimadda Ingiriiska ee London taasina waxay noqonaysaa guuldaradii 2 gool iyo gool ka ahayd oo ay ka qaabileen bilowgii horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska dhigooda Crystal Palace United lama kulmin guuldarooyin xiriir ah oo ka soo gaara kooxaha ka dhisan caasimadda Ingiriiska tan iyo bishii December sanadkii 2001 markaasi oo guuldarooyin isxiixiga ay kala kulmeen kooxaha kale ah Chelsea iyo sidoo kale kooxda West Ham haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe sar gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaaladeena والسلام عليكم ورحمة الله